السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وريا نيشن meel kasta aad joogtaan waxaa idin rajeynayaa caafimaad cibaado suuban iyo cimri dheer ilaahayna inta xanuunkaa ka qaaday inta maaragtay dhibaataysana dhibkaa ka qaaday inteedna kalena allah noo siyaadiyo maxaa la dhahaa ii sheeg baryahan waa yar mashquulso wax aan maaragtay talo iyo duco weli ma soo dirin marka maanta rabaa wax yar inaan halkan ka dhahaa marka hore waxaan rabaa inaan topiga maanta aan kusoo qaato waxaa la dhahaa wada hadalka ama conversationka sida qofka bini aadanka ah oo u qaabilo sida macnaha qofka labada qof ee u wada sheekaysato I mean sharing conversation or having a critical conversation which is wada hadal important ah marka culturekeena soomaalida dhan ma dhihi kara laakiin cultureka soomaalida inta badan haddaa u fiirsato waxaa ka maqan sida qofka bini aadanka qofka kale oo walaalkiisa ama maaragtay siyaasad ha ka dhexeyso ama reer ha ka dhexeeyano ama ehela ha ahaadaano ama saaxiibo ha ahaadaano labada qof inay wada hadal qaybsadaan waa wax aada loogu baahan yahay midda kaleeto qofka bini aadanka oo walaalka ama soomaaliga ah haddii aadan laba fikrad kala haysataan macnaheeda maa qofkaas inuu cadowgaada yahay dad badanaa waxaa arkaysaa haddii ayaga waxay aaminsan yihiin aadan ku raacin waxay ku arkaanba inaa maaragtay aada noloshooda dhibaateynaysa ama nin kasoo horjeedo ama qof kasoo horjeeda inaad tahay marka waxaan rabay inaan dhahaa maanta aan conversationkaas maaragtay sida loo qaato conversationka aadka muhiimka u ah labada qof wada hadalka aadka muhiimka u ah guri waa lagu dhisaa maxaa la dhahaa ummad baa lagu dhisaa community baa lagu dhisaa xaafad baa lagu dhisaa because labada qof markay wada hadal ka dhexey karo oo qof kasta fikradiisa oo asoon cabsi ku jirin asoon isdhaha qofkan maaragtay ama uu ku dhibaateeya ama uu dhaqaale kaa goostaa ama maaragtay ama saaxiibtinimadiisa igala noqdaa qofka asoon cabsidaas ku jirin hadduu banaanka hadalkiisa soo dhigo maxaa la dhahaa isheeg waa wax aada muhiim u ah because qofka markuu niyadiisa ka hadli jiro waxa quluubtiisa ku jiro oon la celin hadduu ka hadli karo waxaa waaye labada qofba qofka kale hataa faa-iido ugu jirta caafimaadkaana ku jiro qofka markuusan wax cabursanayn oosan wax hadal isku celi karin oo hadalka banaanka oosan soo dhigi karin xanuuno badanaa imaanayo hadda guurka soomaalida waxyaabaha ugu badan oo dhibaatada keena waa wada hadalkaas dhibaatadiisa ama aabahiya odagiya hadalkii gabarta ay u sheegayso dhibsanaya ama ayadiyaa dhibsanayso hadalkii waxaa waaye qofkii oo arrin muhiim kuu sheegaya wixii dhan wax easy laga dhigaa war waxaas macno mala naga dhaaf mar kale aan ka wada hadlaynaa marka waxyaabahaas markay isku korkoraan guurkii oo burburinaya reerkii oo burburinaya adduunkana waa kuu sheegay wax oo horta perfect la dhahaa oo weligaa wax perfect la dhahaa maba jirto ilaahay basaa perfection leh ilaahay basaa maaragtay wax oo saxa oo clean ah oo maaragtay nadiif ah ilaahay basaa abuuray annaga dhan sinaan ka samaysanahay macnaha dembi socdaan nahay taas waa markasta inaa istakfiruleysta markasta inaa ilaahay u noqotay markasta inaa salaad noqotay wixii kaa dhacay aa weydiisatay maaragtay dembi dhaaf laakiin qofka bini aadanka weligaa ha isdhihin perfect yaa tahay ama nadiifaa tahay qof kalena ha u arki nadiif inuu yahay marka waxa importantiga oo labada qof oo bini aadanka sheekada markay wada hadal qaybsadaan oo keeni kara waxay tahay is-aaminaad because qofka haddousan kaa baqayn oo waxa qalbigiisa ku jiro oo kuu sheegi karo aaduu kuu aaminaya ama dhaqaalaha idinka dhexeeyo business ha idinka dhexeeyo ama personal life ha idinka dhexeeyo ama waddan ha idinka dhexeeyo ama organization ha idinka dhexeeyo qofkii wuu ku aaminaya because wuxuu ogyahay wixii uu kuu qabo oo calooshiisa ku jiro inuu kuu sheegi karo marka tan ugu daran waxaa waaye oo marka qofkii
dismiss waxa lagu sameeya marka qofkii la dhahaa oo waxaas macno ma lanaga dhaaf, waxaas macno ma lanaga dhaaf, marka qofkii asigii inuusan macno lahayn inuu isku arko bas ma ahane hataa wuxuu aaminsan yahay iyo fikradiisa inaysan macno lahayn oo u arkaya. meela socotaa marka midda kaleeto oo aan markasta isweydiiyo, qofaa qofaa arrin adiga kaa duwan oo aaminsan yahay, waa ka wada hadasheen labadiinaba, waa doodeen dood nadiifa doodeen wixii u sheegteen sababta asaan u dhahday waxaad u dhahday waxaa aaminsantay, qofkii ma kaa haraay wuxuu rabaa inuu asiga wuxuu aaminsan yahay kaa dhaadhiciyo. marka haddaad tiraa warniya waxaad aaminsan tahay qofyo waxaad aaminsan tahay waa fahmi karaa meesha aad ka imaanaysa, laakiin fikraddaas anima kula qabo, qofku waa inuu qaataa, waa inuu aaminaa, waa inuu kuwa ixtiraamaa, because fikriyaa leedahay human being ataa, qofka fikirka uu leeyahay waa inaad ku ixtiraamtaa. dhibaatada ugu badan hadda Soomaaliya haysato waddankeena haysato waa taasoo miira, qofaa fikrad sheegaa boqola caynaysa kuna caynaysa didasa, marka wixii dhanaaba waxay noqonaysaa foodo. annaga marka dhibkana sii haysta waxay tahay adduun weynihii waxaan kaga duwannahay, waxbarashadii aan ugu yar, caafimaadkii aan ugu yar, because qofka markuu waxbarasho leeyahay waxbarashada qofka caqli ma u siyaadiso. dadka waxay u malaan qofka markuu waxbarto oo waxaa le qofkaas PhD holder waa PhD oo haystaaye muxuu saas uga hadlayaa, taas macnaheedu maa ninkan PhD-ga academic systemkii uu fahansan yahay laakiin aqligiisii mausan kordhin. waxbarashada qofka waxay u faa'iidaysataa, waxayna u faa'iidaysaa inuu analyze gareeyo informationka kusoo dhacayo, waxbarashada taasay ku siinay, because markaa research samaynayso oo cilmi baaris samaynayso oo wixii maaragtay analysis waxaa ku samaynaysaa waa kala jarjaraya wixiiyaa fahmaysaa. qofka markuu dhakhtar noqdo maxaa la dhahaa calculus iyo algebra iyo wuxuu oo macnaha prerequisite looga dhigo oo qofka intuusan medical school qaadan schoolka classyadaas inuu soo qaato waxa loo dhahayo, macnaheeda maaha ninkan surgeon markuu yahay oo maaragtay miiska qaliinka uu saaran yahay inuu calculus isticmaalayo ama xisaab isku dardarid isticmaalayo, laakiin waxaa loo siiyaa classyadaas inuu qofka fikiro, critical analysis wax la dhahaa inuu sameeyo, oo marka xaaladda ugu xun oo noloshiisa xaaladda ugu xun oo markaas ku sugaya inuu ku fikiro kadibna solutionka ugu fiican oo qaato. wax kasta solution ay leeyihin, la solutionkii inuusan perfect noqdo ma aha, laakiin wixii markaad kala dhigtid oo kala tuurtuurtid waxa ugu wanaagsanaa qaadanaysaa. marka Soomaaliya hadda dhibka ka jiro siyaad bare kadib 30 sano 30 iyo intaasoo sano oo civil war dagaalo sokeeya ka socda, waxbarashadii systemkii baabaaday. marka hadda waxaan produce galayna waxaa arkaysaa qof jaamacad ka baxay Soomaaliya oo wuxuu kuu soo qoraa af Soomaaligu kuu soo qoraa hataa aad fahmayn wixii dhan la soo gaagaabiyay, seetaha waxaa la isaga kaa soo qoraa STY or something like that. marka knowledge maba jiraba wadankii, jaamacadahan iyo minister wasaaradda waxbarashada, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda finance waxay u dhisan yihiinba maba taqaanidba, because wixii loo dhisay maba qabanayaanba. dhibka jiro qofka wasaarad waxbarashada markii la aas-aaso number 1 waxay tahay inay controlsho curriculumka ama cashirada laga bixiyo iskuulka, waa inay ardada ay produce garaynayso ama ay soo saarayso ay yihiin arday diyaar u ah adduunka. marka jaamacad private hataa hadduu qofka galayo waxaa ku qasba qofkaasi jaamacadda aas-aasayo before uusan inuu building dhisin qolal badan uusan furfurin inuu diyaariyo curriculumkii, macallimiin qualified ah, soo arday wixii diyaar u ah inuu soo saaro. marka qofkii Soomaali maxay u burburaysaa lugla, waxay u burburaysaa we losing, waxaa naga dhamaaday fikirkii oo importantiga ahay. everywhere u fiirsa dowladdii siyaad bare markay joogtay, dowlad wanaagsan oo perfect ma ahayn, laakiin if you think about it, waxbarashada ay dadka soo saari jirtay, jaamacaddii Gaheer iyo jaamacaddii La Foole ardada kasoo bixi jirtay arday diyaar ah
oo stagekii shaqadii laga rabo u diyaarsan oo trainingkii practicumkii wixii dhan maray. Even hataa u fiirsa music soomaalida, musigeeni fiiri waxyaabaha qaarkood markaad dhegaysatid, ah, soomaali kaban marka la tumaayo, heesihii la produce garay jiray, sida loo heesi jiray, programka soo isugu daba dhacsan. Haddana waxaa soo baxday nin kasta luuq ku qaylanayo inuu durbaan garaacdo, because waxaa naga dhamaaday processkii curriculum, waxaa naga dhamaaday cashiradii qofka lagu diyaarinayo waddanka ma jiro. Marka waddanka wuxuu u baahan yahay waxbarasho gaara, wuxuu u baahan yahay in maaragtay dib loogu noqdo ardada lasoo diyaariyo oo diyaaru inay waddanka hogaamiso. Caafimaadkii ka soo qaad, dhibaatada ugu badan Soomaaliya ka jirta maanta waa caafimaad darro. Qofka bini aadanka markuu cunto oo cuno ee meel oo jiifto markuu helo, waxa ku xiga waa caafimaadkiisa iyo maaragtay waxbarashadiisa. Caafimaadkii qofkii haddii uusan maanta, war qasab maaha qofki inuu private, ama qofkii maaha inuu health care helo oo aan dhehayna dowladdii maaragtay universal health care ha sameyso oo qof kastoo Soomaali ah maaragtay caafimaadkiisa waa inuu maaragtay mas-uul laga yahay mala dhahayo, because maba hayna waa awooddaas. Laakiin dowladdu waxay sameyn kartaa private yaasha, cliniga private yaasha ah iyo waxyaabaha awoodda inay controlaan, inay regulate gareeyaan, inay ku qasbaan inay maaragtay caafimaad sufficient ah oo wanaagsan oo xaq ah oo inuu qofka ay sii karaan. Farmashiyaashii waxay rabaan ay gadaan, qashinay kaa gadaan, daawo dhacday kaa gadaan, placebo daawo oon jirinay kaa gadaan, bur oo maaragtay cajiin maaragtay kiniini laga soo sameeyay dadka gadaan. Wixii markay dowladdii waxay xaq u leedahay inay regulate garayso. Qofka pharmacy-ga furana waa inuu training maro, waa inuu yaqaano medicationka oo maaragtay oo dispensing ku sameynayo ama uu siinayo maxaa la dhahaa ii sheeg qofka xanuunsan. Waa in maaragtay monthly lagu sameeyo maxaa la dhahaa ii sheeg inventory wax la dhahaa alaabta hayo isoo maaragtay expiration date-kooda. Waa ina testing, waa easy testing in lagu sameeyo medicationkaas inta la fiiriyo in maaragtay ay ingredient-gii oo maaragtay kiniinigaas loogu talagalay inuu ku jiro, maaragtay daawooyinka maaragtay waxyaabihii oo active ingredient loogu talagalay inuu ku jiro. Marka waa waxyaabo easy. Dowladdii marka waxyaabahaas inay ku mashquulsho rather than waxaa lagu mashquulay hana loo ku dara iyo baarlamaanka kan haga qaaday iyo prime ministerka hala casiliyo iyo mid kale hala keenay iyo ayagiyaa waxyaabihii loogu talagalay, shaqadii loogu talagalay inay qabtaan ay gobeen. Markaasaa waxyaabaan loo jooginaa lagu mashquulsaya. Dowladda Soomaaliya ka jirtaa lagu leeyahay waxaa waaye 10 kilomitir ee dowladda dhan lagu sheega haysataa haddaad ka fikirtid. African Union xaalana ku fadhiya, sometimes xaalanadaas hataa maaragtay dadka dowladda madaxdeena hataa aysan gali karin wax lagu sameeyo ilaahay ogyahay iyo reasonka meeshaas loo joogo. Dad kalaa ku fangareeyo oo macallimiintaadii, dad kalaa maaragtay askartaadii iyo dowladdaadii iyo dadkii member baarlamaanka lacag siinayo. Marka waxyaabaha u badan aan raba inaan ka hadalno waa waxyaabaha la qaban karo oo easy-ga ah. Aan iska dhaafna waxyaabaha oo dadka kala geeyo oo xukun raadis, kursi raadis, maxaa la dhahaa ii sheeg baarlamaan raadis. Waa waxyaabaha dadka kala sii fogeeyo. Waxyaabaha commonality-ga naga dhexeeyo oo qof kasta oo tuulo kastoo jooga, qabiil kastoo yahay maaragtay ka anfici kara in la raadiyo waayo. Sida qofkaas caafimaadkiisa oo la ilaaliyo, waxbarasho oo wanaagsan qofkaas inuu xaq u leeyahay la siiyo, maxaa la dhahaa isha qofkii inuu maaragtay waxa fikradiisa ku jiro iyo qulubtiisa ku jiro oo banaanka soo dhigi kara without cabsi. Marka insha Allah intaasaan kusoo gabagabeynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan.